السلام عليكم ما دام ما أنت درسينا وياهي بالوذها waxaan ka hadlaynaa guud ahaan balwadaha ma aha si gaar ah balwada aan uga sheekeynaa ma jiro laakiin waxaan ka hadlaynaa waa guud ahaan balwad oo dhan waxaan ka sheekeyn doonaa balwadaha waxyaabaha keena maxaa ku khasbaya qof bani aadana inuu balwad yeesho aadamiga oo dhan sidaan ogsoonahay ma aha dad balwadooda leh marka bani aadamka qaarkii maxaa ku khasbaya inay balwad yeeshaan oo qaarkood u lahayn marka waxaan ka hadli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waxa balwada keena waxaan kaloo ku hadli doonaa calaamadaha lagu garto dadka balwada leh dadka waaweyn iyo dhalinyarada labaduba calaamadaha lagu garan karo guri markaad joogto family marka uu qof ka mid ah reerkaas uu balwad yeesho calaamadaha lagu garanayo qofkaas lagu garanayo iyo wixii waana ah oo aan ummadda u soo jeedinayno tawakkal ahaan taas weeyaan waxaan maanta ka hadli doono darsigeennii kale hore waxyaabo badan aan uga sheekeynay ayaa jiray barnaamijyadan waxaan ugu talagalnay wacyigelinta ummadda maadaama uu yahay dad barnaamij loogu talagalay dadweynaha aanu ahayn mid khatiir waxaas aan la hadlayno waxaa ka sheekeynayna marka waa si guud waxaan ka hadlayno dhanba calaamado badanaa jira lagu garto horta qofka balwada leh taa marka intaan u gudbin waxaan ka hadlaynaa bal maxaa ku khasbaya qof bani aadam inuu balwad yeesho waxaa jira laba arin ayaa loo kala saaraa oo waaweyn mid waxaa la dhahaa biological waxa weeyaan qofkaas aadamiga ah wax ka muuqanaya isaga jirkiisa ama wax jirkiisa ku jira oo keenaya inuu balwad yeesho midna waxa weeyaan psychological factors waxa weeyaan xagga dhimirka qofka waxa ku khasbaya inuu balwad yeesho oo ka imaan kara xataa bulshada ka imaanaya taas weeyaan mid aan ka hadlayno marka aan biological ka hadlayno yani shakhsiga dhexdiisa waxa keenaya inuu balwad yeesho waxa weeyaan dhaxalka marka ma aha qofka balwad hebla inuu yeesho dhaxalka inkastoo qaarkood ay jiraan si toos loo dhaxlayo waxaa jira waxyaabo qofka u nuglaya inuu balwad yeesho ayuu dhaxlayaa qofkii cudurro qaarkood oo dhaxalaa jira qofkii kadibna u fududeynaya inuu balwad yeesho waxaa kaloo soo gelaya cudurro maskaxda ah oo xataa qaarkood aan dhaxal ahayn ayaa keeni kara inuu qofkii hadhow balwad yeesho cudur kasta oo maskaxda ku dhaca badana schizophrenia ha ahaado cudurrada traumaha ay keeneen ha ahaadaan depression wax kasta ha noqdo cudurradan maaragtay maskaxda ku dhaca badankooda way keenayaan qofkii inuu balwad yeesho waxaa kaloo jirta ayaga isxoojinaya for example qof baa balwad lahaan jiray balwadii buu joojiyey kadibna dhowr balwad lahaan jiray sigaarkii uu dabcan inuu sii wato weli oo sigaarkii sii cabo sigaarkii markuu cabo kadib wuxuu ku celinayaa haddana sigaarkii wuxuu u keenayaa inuu dib ugu noqdo jaadkii ama khamrigii waxyaaba noocaasa taas ayaa keenaysa inkastoo marka aan qof ka daaweynayna balwada qofka heshiisa la gelaya marka u horeysa waxyaabaha ku heshiina waxaa ka mid ah balwada ma inaad joojisaad rabtaa adigu sidaad jeceshahay qofka ra'yi qofku ka imaanaya mise qaarkood inaad joojisaad rabtaa mise inaad yareysaad doonaysa saas way heshiiskan badanaa la galno qofka isagaan ra'yiga keensanaya ra'yiga uu keensaday un baan ku caawinaa annaga marka aan qof ka daaweynayna balwad marka balwadaha qaarkood qofka marka hadduu qaar joojiyo qaarna joojin waayo waxaa dhici karta inkastoo aan aragnay xataa dad qaar wata balwada qaarna iska daya aan ku noqon laakiin waxaa dhici karta mararka qaarkood sigaarkii oo kale inuu dib kugu soo cesho jaadkii ama khamrigii waxyaabaha keenaya qofka inuu balwad isticmaalo waxaa ka mid ah maanta oo kale ayuu isticmaalay balwad ama dhowr beri ayuu isagoo iska isticmaalay cayaar ahaan oo kale isaga gelaya kadib maalmihii ku xigay oo balwadii dhiiggiisa markay ka baxdo wuxuu dareemayaa qofkii calaamadahan la dhaho withdrawal syndrome ama Soomaaliga waxaan ku dhahno qaadiradii waxa qofkii caajis iyo jooc iyo kor xanuun iyo laf xanuun iyo hurdo iyo waxaas oo dhan iyo daal iyo culays iyo qaleel iyo waxaas dareemaya marka waxaas wuxuu isaga bixin karo waa wax aan loo dul qaadan karin qofka aad u dhibayo wuxuu isaga bixin karo waxa inuu balwad galo marka inuu wax isticmaalo taasna waxay ka mid tahay waxyaabaha keenaya balwadaha biochemical factors waxyaabo maskaxda waxay ku shaqeysaa chemistry waxyaabo chemicals
waxyaalahaas chemicals haday sidii loo baahnaa kale u dheelitireen oo kale waxa imaan karta qofka inuu u nuglaado inuu balwad yeesho taas waxa weeyaan qofka dhexdiisa waxa ku jira oo jirkiisa waxa ka keenaya oo maartay inuu balwad yeesho waxyaabaha marka waxa jira psychological qofka fikradiisa waxyaabo ah oo keeni kara inuu balwad yeesho waxa kamid ah dhalinyarada u badantan curiosity bal waxa aan fiirin maxay aan dhadhamin waxa dadka isticmaalayaan waa aragnay marka aan dhadhamiyo taas way keenaysaa novelty dad waxa jira dhalinyarada iyadana u badan wali waxa cusub jecel markay arkaan xaafadii iyo waxa soo jaad laga cunay iyo aan waligood hore u arkin ama khamri meel dad cabay ba aan fiiriyo novelty waxa cusub aan fiirino guriga laga isticmaalo social rebellious yani waxa weeyaan dhalinyarada kale waa naqaanaa waa xoog soo koraya waxay jecel yihiin inay ka hor yimaadaan waxyaabaha maaragtay impositionka waxyaabaha dusha laga saarayo sidii waxaan waa khalad waxaan waa sax waxaan waa fiican yihiin waxaan waa xun yihiin markay waalidka leeyihiin dhalinyarada waxay leeyihiin mararka qaarkood waxaan ii diiday maxaa iigu diiday ma fiiriyo aan dhadhamiyo dhadhamintaas marka waxa waa kacdoon oo kale moogtay dhalinyarada caani ku yihiin taas waana loo baahan yahay qofka dhalinyarada inuu yahay inuu firfircoon yahay oo uusan waxba iska qaadan waxba fiiriyo laakiin isla markaasna waxa laga rabaa xagga waalidka maartay inay qofkii dhalinyarada ah ka horeeyaan oo ay hagi karaan laakiin haddii adigiiba aad fahmi karaan aad ka dambayso dhibaato imaanaysa uu habaabaya ilmi marka social rebellious waa kacdoon oo kale wax ah oo ku jira dhalinyarada early initiation waxa weeyaan guri kabadhi ilmo yar wuxuu ku soo koray guri aabihiisa jaadka cuna ama hooyadiisa jaadka cunta ama labadu waa cunaan ama qaraabadii iyo asxaabtii waxa dhan guri intay isugu yimaadaan jaadku cunaan ama khamri ku cabaan ilmihii yarka ahaa marka intuu u koray waxa soo arkay markay ay dadka kala tagaan qashinka meesha yaali waxa laga yaabaa inuu caleemihii wax afka gasho ama koob meesha yaali inuu taabto dhadhamiyo waxa ku jiray saas marka yaraan uu ku bilaabay kaas waxa jirta poor control waa mid hadaan sheegay oo ka imaan kara xagga waalidka iyo qofka naftiisa uusan maartay ismaareyn karin yaraanta oo kale ciyaalka hadaan la barin waxaan u baahnahay hooyo waxaan raab waxaan markuu leeyahay hadaan la barin marka qaarkood wixii oo yaala maya ma lagu siinayo waa inuu bartaa qofkii inuu xakameyn karo noloshiisa asagoo wixii u jeeda marka qaarkood in maya ay jirto xataa waxba haa ah markaas waxa imaanaysa qofkii inuu noloshiisa xataa ka celin karo ama xagga waalidka naftooda control fiican control waalidka ma ka wada ariga in ilmaha la daba socdo ama 4 saacadood la saaro waxa weeye waa trainingkii hore ayuu badanaa galaya sida ilmaha u soo tababaraysid sensation seeking yani dad waxa jira markii balwadaha iyo khamriga iyo waadiga arkay xayisiisyada magaalooyinka waaweyn waxa lagu dhajinayaa masawiro waaweyn oo qurux badan oo ku qoran yahay nin maartay qurux badan u labisan gabar kale oo iyadana qurux badan baabuur qaali ah agyaala oo dhala khamri ah dhextaal wax noocaas oo kale ah qofku wuxuu isleeyahay dadka oo eco qofkii dhalinyarada ahaa badana Soomaaliya kale waxyaas badana kama jiraan laakiin magaalooyinka waaweyn hadda Nairobi hadda aan joogno kale marka magaalada aad waxa ka boorar waaweyn waxa ku qoran yihiin marka taas way keenaysaa iyadana ilmihii inay isdhahaan ku dayo midii hore early initiation oo kale xataa hadaan dib ugu noqdo waxa soo galaya xataa for example meel jaad lagu gado kale waxyaabaha jecelaha dadka inay aad u fahmaan meel jaad lagu gado meel khamri lagu gado haday u dhowdahay school kaba dhigba ama meel madraso ciyaalka ay quraan ku bartaan ama masaajid hadii agtiisa lagu gado jaad ama khamri lagu gado masaajidka waqtiga marba waa school no way hadda ka horna waan sheegay wax badan madraso iyo school iyo masaajid iyo meel wax lagu barto oo dhan waxa la rabaa inay ka fog yihiin meelaha balwadaha lagu gado sida khamriga jaadka waxa soo dhan waa waxyaabaha hadii kale ciyaalkii iskuulkii ka soo baxaya masaajidkii ka soo baxaya madrasada ka imaanaya uu soo baxaya wuxuu soo istaagaya meesha jaadka lagu gadanayay meesha jaadka lagu gadan waxa hor fadhiya dad jaad cuna iyagana balwad leh ilmihii marka wixii caadi buu u arkaya taas marka ayadana kamid weeyaan waxyaabaha keeni kara oo psychologicalka ah poor stress management qofka markuu walwalo ama naxo dad waxa jira marka aan garanaynin si isu maamulaan markaas oo markiiba ku ordaya balwadi taasna waxay soo galaysaa tababarada hore
waxaa jira waxyaabo badan oo qofka markuu stress dareemo uu isaga maareyn karo sidii tusbax kale aan qaadato subxaanallah maanta tiraahdo sidii ma aragtay deep breathing waxa la dhaho neefta qaab loo jiido oo carada la isaga biyo diintan way sheegtay xataa arrimahan oo kale diinta waxay tiri hadaad naxdo ama hadaad aad u xanaaqdo hadaad taagneedna fariiso hadaad fadhiidana seexo macnuhu sidaad isu maareyn lahayd waxa lagu sheegay laakiin hadaadan garan isu maareyn lahayd balwadaad hore ka galaysa childhood loss or trauma ilmaha yarka oo dhibaatada ku soo koray ama waalidkii ka dhinteen dadkoodii aan soo korin meel dhib badan ku soo koray suuqaas isaga taagnaa oo dhib badan soo maray yaraantoodii way u nugul yihiin ayaguna to escape from reality tan waa waxyaabaha annaga noogu daran oo aan ka hadleyno hadda Soomaalida oo kale waad ogtihiin 22 sano u dambeeyay balwada sidee noqotay waa xad dhaaf xisaab male umadeeni jaad iyo balaayi iyo waxaas la aad u isticmaalayaan waxaas maxaa keenaya dagaalkii iyo naxdinta qofku wuxuu isleeyahay waxaan si bal iska dheh ka dhuumo markaad ka dhuumistaado balwada isticmaalaysaa naxdintii ka yaraanayso iyo waxyaabihii laakiin wixii waliba taagan yihiin marka reality-ga ayaa looga baxsanayaa taas xaqiiqada uga baxsanaysa waxaa kaloo jira qofka conventional goalska waxyaabaha markaas taagan oo ummadda target-ka u ah hadduusan asaga xiise gelinayn waxaa imaanaysa qofkii inuusan dan u gelin waxaasoo uu isaga mashquulo marka balwado iyo wax noocaas marka maxaa ka mid hadda qaybta Soomaalida kale markaan u soo noqono annaga dadkeenii balwado ayahan badan waxa keenay waxa ka mid ah dagaaladii sokeeyay qabyaaladii dadka mas'uulka ah waxa loo baahan yahay inay noqdaan inay isu arkaan ummadda oo dhan ee mas'uul ka yihiin si markaas dadka oo dhan ay ku hagaan wax ayagu markaas ay ku qanci karaan qof kasta markuu u arko marka dadka mas'uuliyiinta ah wadada ay ku hagayeen inay tahay wax adigana ku anfacaya wax adigana dan ku ah laakiin hadii loo arko qofkii mas'uulka ah wadada uu kugu hagay inuu yahay wax ninkan dad heblo wax dan u ah ama mas'uulkii naftiisa duusi isu arkinba inuu dadka oo dhan mas'uul ka yahay waxa imaanaysa ummadii qayb kamid ah in la inkiro ama la iloobo oo markaas ay meesha ka baxdo deen dadka ay isaga mashquuliyaan jaad iyo balwad wadankiina ma horumaray taas marka waxa weeyaan conventional goalska in dadka dhan laga dhigo dad wax uu cuntamaya in loo raadiyo taa gaar ahaan waxay ku socotaa dadka mas'uuliyiinta ah gaar ahaan Soomaalida dadka mas'uuliyiinta ah isweydii maxay ku dhacday 22 sano u dambeeyay markay foodada dhacday oo dawlad la waayay in balwada ay badatay sababta waxa way qofkii horumarkan iyo waxaan la raadsay uma arko horumar asaga ah wuxuu arkaa wax asaga lid ku ah malaha then ma wuxuu arkaa in Xuseen Baari waxaan wuxuu doonu sameeyay qofkii dawladda marka looga baahan yahay mas'uuliyiinta inay soo arkaan dad mas'uula ummadda oo dhan mas'uul ka ah dadka oo dhan wax ku qanca inay raadiyaan dadka oo dhan wax ku farxi karaan dadka oo dhan wax u cuntabi kara oo at least 90% oo kale ummadda inay dadkaas wax ay ku qancaan oo marka tigsan karaan in la soo hordhigo gool looga dhigo dadkii psychological stress tas jirooyinka oo dhan horaan u sheegnay jiroo dhan way keenaysaa iyo naxdinta iyo wax kasta way keeni karaan balwada taas waxa weeyaan sababta keenaysa marka aan ka soo gudubno calaamadaha marka lagu gartaan u soo gudbeynaa waqti badan ma haysana marka isku dayaa in dedejiyo calaamadaha lagu garto balwado dhan ma aha balwad hebla ama balwad hebla kale ma aha balwado dhan calaamadaha lagu garto qofka balwad markuu yeesho waxaad garanaysaa koow mas'uuliyadiisii uu ka tagayaa hadduu nin yar ahaa iskuul dhiganayay iskuulkii u goynaya markuu baxo iskuulkii ka cararaya qofkii shaqada lahaa shaqadii uu ka baaqanaya maalmihii qaarkood shaqadii uu ka maqnaanaya waxaas oo dhan sababta keenaysa waxa ama iskuulku u baaqday ama kii kale weynaa shaqada u baaqanayo waa balwada awgeed because waa daalan yahay ama balwadii uu raadinaya taas keenaysa maxaa kale lagu gartaa waxaa lagu garanayaa qofkii isagoo marqaansan ama khamreysan ama si ah ayuu xogalayaa shaqooyin khatar ama warshad shaqo ah hadduu ka shaqeyn jiro tagaya ama hadduu gaari leeyahay gaarigii wadaya ama gaari qof intuu ka soo qaato ayuu isagoo sakhraansan kaxeynaya markaas khatar naftiisa gelinaya waxaa kaloo caan ku ah markasta dadka balwada leh sharciga iyagoo isku dhacaan sababta waxa qofkan balwada leh khaladaad u galaya ama asagoo ogeynaa khaladaad laga galayaaba oo waxba la isdaba marinaya deentaas asaga sharciga marka in dib ka dhaco meeshaas ayaa imaanaysa xiriirkii ummadda aad leeyahay
xiriirka ummadda leh balwada way saameynaysaa qofka balwada leh dadkii uu jeclaa walaalihii hooyo aabe adeer dadkii qaraabo xaaskiisa ilmihiisa xiriir fiican marna lama laha sababta waxa uu ku mashquulsan yahay balwadii taas waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan isticmaalka dadka isticmaala bay kala yihiin qofna qof isticmaala balwadii qofna qof addicted waxa qof dhiigiisa ay gashay oo aan noolaan karin bala'aanteed aan ka joogi karin qofka addicted-ka marka maxaa lagu garanayaa qofka addicted waxa lagu garanayaa asaguna markaan dib ugu soo noqono wuxuu sameystay waxa la yiraahdo tolerance for example shalay laba dhalo markuu cabo hadii uu marqaan fiican ka heli jiray maanta wuxuu u baahan yahay meesha laba dhalo shay ka heli jiray 5 dhalo bari wuxuu u baahan yahay 7 saadam wuxuu u baahan yahay 10 saadam 20 saasay ku soconaysaa tolerance ayuu qofkii dhistay marka jirkiisii oo balwadii wax ka badan markaas u baahan yahay haduu bijinjaad cun jiro laba u baahanaya maalintii xigta toddobaad ka bacdi saddex u baahanaya markasta inta shalay qancin jirtay ma qancinayso qofka dhiigiisa ay gasho waxaad ku garanaysaa withdrawal syndrome macnaheedu qaadirada waxa weeye markuu shalay qofkii balwad isticmaalay ama khamri ama jaad ama xashiish ama heroin ama waxay noqotaba qofkii markuu isticmaalo bariyo kale calaamadaha ku soo baxaya daal badan xanaaq badan qaleel badan jirkiisii waxaas wuxuu isaga bi'in karaa oo kaliya isagoo isticmaala balwad kale mar kale bahasha isticmaala loss of control of your drug use qofkii ma xukuntid balwadi noloshaada oo dhan waxay ku wareegaysaa balwadaas yani waxa weeyaan beel soo socdo wuxuu isleeyahay mishaar maanta soo qaatay mishaar markaa soo qaato waxaad isleedahay maanta bal meeshaan ku leexo laba dhalo ka cab oo biira kadibna isaga tag makhaayadaad galaysaa oo aad ugu talagashay waxaad arkaysaa kabadhii baduurnimo ay ahayd 6 saac weyn adigoo wali fadhiya oo meesha aad laba dhalo ku gashay meesha adoo 20 dhalo cabay arkaysaa duurkii habeennimadii means ma xukumi kartid waa calaamadaha addiction ka lagu garto mishaarka asaad guriga gaarsi dhexdaaba ku dhameynaysaa asxaabteeda arkaysaa kana arkaysaa balwadii wixii baa sii badanaya habeen barkii waxa ma haystid lacagtii waa dhamaatay gurigana laga suuyaa waxa kaloo lagu gartaa qofka shaqadii uu heen jiray iyo waxyaabihii uu qaban jiray oo xiiseen jiray dhan iyo asxaabtiisa iyo dadkii uu la socon jiray dhan uu ka go'aya si balwadaas waqti ugu helo adoo og calaamada kale lagu garto waxa weeye adoo og bahashan dhibaato kugu hayso xagga caafimaadkaaga ama ilkihii baa ku jajabay oo dhan ama wadna xanuun baa kugu dhacay ama calaamado kale kugu dhacay caloosha boo ku yeelatay wax kasta adoo og ayaad joojin karno sii wadaysaa taas waxa weeyaan xagga shakhsiga xagga bulshada calaamadaha guud physical science qofka jirkiisa maxaa ka muuqanaya waxa ka muuqanaya waxa weeye indha aad u gududan iyo qofka yeelanaya sabab badan jira indhaha gududin kara laakiin kow balwadaha waxay keenaan indha aad u gududan oo qofka yeesho oo ka gududan meesha dhexe indhaha qaarna aad u yaraanaysaa meesha gudaha ah qaarna dadka qaarna waa ballaaranaysa balwaday ku xiran tahay taas nooceeda qofku waxa isbedelaya cuntadii qof cuntada cuno jecel cuntada uu ahaan jiray waxa laga yaabaa inuu yareysto qof miisaan badan haduu ahaan jiray miisaankiisa waa baaba'aya hoos u dhacaya qofkii physical appearance muuqaalkiisa isbedelaya qofkii haduu ahaan jiray nin xaraga badan oo aad u labis iyo dhar iyo nadaafad iyo midna ma kala jecla ma shalaysanayo ma qabaysanayo dharkiisa kama dhaqayo sidoo doono isaga dhaqmaya qofkii waxyaalaha lagu garto weeyaan qofka balwadaha isticmaalaya waxyaalaha kale waxa weeyaan qofkii mar walba jirkiisa waxa ka soo uraysa ama khamradii ama sigaarkii ama waxyaabihii ama xashiishkii mar walba jirkiisa waa ka dareemaysaa markuu ku soo istaago ama ku soo agmaro waxa kaloo kamid ah gariir qofka jirka maartay aroortii oo kale waa gariiriya qofkii korkana duwaaxinaya carabka jiidmaya qofkii si toos ah ayay uma hadli karo na asaas oo hadlaya qofkii iyo murqihiisa qofka maartay coordination ku sameyn karin oo wada shaqeyneen oo markuu socdo qofka dhacdhacaya calaamadaha kale marka lagu garto oo xagga dabeecadda oo kale marka aan soo hadal qaadno waxa way hore u sheegnay qaarkood
waxa qofka iskuulkii ka baaqanaya waxa kale oo muhiim ah oo aad loo garanaya for example guri reer kamid ayaa qof waxa ku dhex jira balwad leh waxyaabaha la ogaanaya waxa gurigaas wax alla wixii luma lama helo gurigaas waxba lumaya gabadh baa dhig ka dhacaysa ka lumaysa silsilad baa lumaysa lacag baa qof meel intuu dhigta uga tagaya waa la waayaya calaamado noocaas daad aragto wax alla wixii gurigaas laga helo oo la waayo waxa way qof waxa jooga gurigaas qof balwad leh mar walba qofkii waxaad ku garanaysaa dagaal oo dadkii khilaaf iyo waxaas jira mar walba oo dadkii la galiyo saacado loo baahnaa ayuu iska maqnaanaya qofkii waxa kamid ah qofkii dabeecadiisa isbedelaya haduu ahaa nin dadka jecel oo walaalihii jecel oo dadkii ku dhex jira oo guriga laga jecel yahay dabeecad kale uu yeelanaya oo wuxuu noqonayaa qof maaragtay aan oo dadkii xataa wayaabaya hebelba ma aha qofkii waxa kale oo kamid ah calaamadaha lagu garto xanaaq marka qarka qofku iska qarxaya si caro meel ka tibi aan la garanayn iyo dadaal la'aan lack of motivation qofkii ma dadaalay oo shakhsi waxa loo baahan noloshaada maalin bidaan meel sii tiigsanayso maanta halkaad gaartay bari xagga gaar saada xagga qofkii dadaalba kuma jiro waa ka haraya arrimii dadaal dhanba taas markii aan si guud iyo shakhsigii oo marwalba cabsi ku jirto marka aragto wuu cabsanaya waa walwalaya wuu shakisan yahay cadow buu arkaa meel walba inay u joogaan sabab la'aan marka dhalinyarada yaryarka ah markii ay balwad yeeshaan reerka gurigaas calaamadaha ay ku fahmi karaan iyada maxaa ka mid ah cunuga yarka waxa ka soo indho gaduudan leh iskuulkii uu aadi jiro waxa arkaysaa macallimiinta waxay ku leeyihiin ma yimaado hebel waana ka tagay guriga inuu ka baxayo meel uu aado ma taqaanid ilmihii wuxuu u baahan yahay lacag markasta lacag zaa'id uu raadinaya mar walba iyo gurigii lacag laga waayay marka qaarkood ilmihii ataqaanay oo saaxiibadiisa ay wixii oo dhan ka harayo kaligiis gooni noqonay asxaabtii uu lahaa oo dhan uu ka haraya asxaabo kale yeelanaya wixii balwadihii waxyaabihii uu xiiseen jiray hadduu sport daawan jiray hadduu buug akhriska jeclaa hadduu kan jeclaa wixii oo dhan uu ka haraya ilmihii uu joojinaya wuxuu jeclaysanayaa markas inuu keligii joogo xataa markuu guriga joogo ma jecla inay walaalihii iyo dadkii iyo hooyihii iyo aabihii usoo galgalaan wuxuu jecel yahay keligii inuu qolkiisa joogo waa dhalinyarada yiyarka ah oo guryaha joogta calaamadaha aad ku garan kartaan taas waa sidaan idiin sheegay waxaan ugu talagalnay guud ahaan shacabkan ugu talagalnay waxaan waa shacabka guud ahaan calaamadaha lagu garto balwadda iyo dadka sida ay ku fahmi karaan qofka yar iyo qofka weynba calaamadaha lagu garto balwad inuu leeyahay wax yaroo دروس كلا ويجرتي عن سيب حلين لكن جودها بالوجه الاستعمال ما حيوجو بدنيهين وأنا وكر ممكن كهذا السوالات جاتك حصور على سياق أقول بدن جاتك كحجة وحصور على حشيش وحصور على خمري وحيواه سوي أنا نكنا وحيواه أقول بدن وأنا استعماله متكسر على مدى قالوا لي هاي دروس توقتي كان يكاد دونا على مداس ما دام تنشعك لو ترجعنا تاسوية مركو حنراعين لها أرمية ودردارنا dardaaran ahaan waxaan nahay bulsho si baabacis haddaan Soomaali nahay oo si burburayna maxaan looga baahan yahay maanta waxaan looga baahan yahay inaan dadka balwadda leh inaan la fogeynin inaan la dagaalamin waxaa loo baahan yahay in loo arko qofkan balwadda leh waayahan dambe de waa zaa'id dad aad u fara badan guri aan balwad laga leeyahay ma jirtaba yaan dhihi karnaa reer walba qaar baa balwad leh in loo arko qofkan balwada leh qof dhiban qof xanuunsan u arag ha u arkin qof kibir waxaan u sameynaya ama lacagta qofka iska xadayo tuug noqday halkaliya u arkin qof dhiban inuu yahay u arag qofka balwada leh waxa ogaataa shakhsiyan balwada leh inuu yahay qof dhiban habeen walba qofka balwada leh markuu seexanayo wuxuu ku fikiraa ilaahu yaa ka joojiya taa ogow haddaan nahay Soomaali maskaxdayna galnaa loo baahan yahay taas waxaa loo baahan yahay dadkeena mas'uuliyiinta ayaan si gaar ah hadaan ula hadlo waxaa loo baahan yahay inaan u dhaqano sidii dad mas'uul ah inaan ogaano ummad dhan inay sugayso inaan ummadan mas'uul ka nahay annaga waa inaan dadkeenii wax u cuntama ula nimaano barnaamijyo siyaasadeed yihiin siyaasado dadka u cuntamaya qofka mas'uulka maskaxdiisa galiya dadkan oo dhan inuu isagu mas'uul ka yahay hoggaanka kama soo harto isweydii maxay ku dhacday markii dawladda jirtay in balwadu waa jirtay waana yareed markay dawladdu burburtay in ummadii dhan balwad soo badato maxay ku dhacday waa hoggaan leadership ma ka soo harto hadii ummadda si balwad laga daaweeyo
aan aragno aan soo aragno dadkeena waaweyn inaan nahay mas'uul inaan ummadii mas'uul ka nahay aan u dhaqanno si responsible ah taas weeyaan intaan uga soo harayo والله وقد ما رواح سجني أنا مثلا هذا وربيها شيء كانوا في هذا شيء ده يعني يومنا أنا عامس أنا نقص يعني جويا وراح سوق حبة السود أنا أنا لا يا سعد مشغول عبد مشغول هو أنا شو أخذت عنها خواتين غرفي عن محل حفظ قاعد أعرف صناعة إلى حد والله تعرف لا قبل ما هرت باقي لا بارنيو بارنيو واحد أنا كنت أنا حالي صوب عرفت كذا صوب لعبت كم لعبت السيارة نيو خاتك برجو أنا نيو الله قاتل معيش أنا خات مدماري لعبت كم ورا يوم مالمان جعل هاي قفتو درسكين دبعا قصب بحنا جعل هاي أنا ما أعرف حبصار لو من أنا مقعد أو كل هذا بين ما فع جعل يقرب قطاس بلا أوه ساتا يورن يريدو يا عمو أنا حسن هذا الأساس يدخل قفوالا ما يا قفتو كيف كده مالمان دبو قفته قلبي يقش قفتو مالمان كل سوسو أبو قلبك وحمو كجري حبصو أوه تي مالتي لسه لكن قف هذا عمل ما بركته محارة أنا سنقول لك من جد ساعة وياه أنا قف عن عمله ميا لما أنا هذا عمل هذا وأنا قمقرا إذا كنا غني جروب كان مسوق لي ها جروب ما له حاجته وحكو سمينه هاي أداك شو بيرت البريخ سيا قبل قبل ميا سايا درت ذا حول بوص مينا درت ها وحنا لسه كسو بدل هاي في عنا ست هذه حاضر وأنت مالك ويا محمد بحد قبل قواي إن القرصة مليئة عروس مقال نورت أنكو شيء حبتكم ما نسل سعتين أركنهم والله كيف تحبحن كلها على قصة كويس سابا كيف سويا روقة يعني سؤال عروقة دي لا شريفة شريفة ما ردها شريفة لا سابا بابا أنا قصد عليك بخطة سما شامل كرتاد عمو ما هي كريئة سببته هي كرم محيطها هذه أفارها كان نوحة كامكا وحيلا مكان ماشي وحوى بوان قبائل وقرصنتها لكني هاي وحا حوقاك عسل إيه شيء محاوي وحبر بدرتي توصل بنا هاي أسيت رسو حكس موسمين توصل بنا ديارة وهاي لكن المجال مسكري كرتاها عمر البادية يعني أوقت يقدر عفنا أدي ما هي مع هاي البادية محاسب بنا أسمع بليش البلد أفارها أجرنا ماشوا نوي ماني وحالك برا بس ديارة انتوا وإيش قدي وحاس محاولي كرتاها وحول بدرتي ساعة هذا أسي هلا بسوا وحكي وهي لا ترى وفوق صحيح هاي ليك ملك بس واي أنا برا هاي بسوا ما كشرة قربت الصوت دياري هاي ديارة وهاي هاي نيو بكاري ونجمين تكبحين بري وعلى يا بنا والله من ده ويسوس صعبة وحين horta aniga waxaan macluusha ka sanaa maalinta baalki qaato waxay soo baartay loo soo حاجة سكورجيا نجمي بكاري تكبحين بري نيو وعلى يا بنا والله من مقالة وإحنا مخنهين warbaagu maalinta qaadina wuxuu ku jiro soo gadaa soo maanana دولكو أصلا كل قاتو جيس كسب باشا دولكو قاتو أرد عقبة ما إيه masih ada Maria ماشي أبو شيء واتنا ماشي محاور وهذا ماشي أبو شيء قبل دينا واتنا كان تكنت نيو كان يوا قبل دي واتنا قبل التنمية قبل ده أبو خو هالمرجيت جيدة صاصة وهذه كلك جوين جد العقب بدنا في صوب الناس سان وجيت جيد ساس ما قدر قدر هسه لو جيت له وراح نجيب ما ولا خبسنا هذا ويل سوق هذا ما يقاتي كرو والله خمسة وحنا على دوار حط دي الموها يعني ليه لا في عندها في عندها عرفوا عيالي كربا بيرلا بيرلا مركز. والله خمسة
maxaa uur ma qabta maxaa xilay maxaa la meesha wax ka soo ururaya waxaa sita waxa loo baahan yahay ninkan marta ahaa mismay basta waxa ninkan daartid wax baasan waxaan ku soo uraya cabba وعبي حتى هذوك دوك ديدك راه درتو كل درتيسو وادي واسمعنا حكستان نعم سلو قوا maxaa ku sameynaya جدمينو jiidaya ورا اساس ما سوسنا ساي هذا قبري هم تستوى ودي باين قلي taasina قلي noqotaa وكسا هذا برت bes الله ربادي وحبر سامة ترفق على maalin ويدي walba ma horta aan ii أنا sheegay بلا rabe labada cusub maanta baraaweynayna وخسياسنا نقصد السماء keena ma sugaad horta sugaad ma soo dhameynaysa warna حبدان أنتم ما يقص يعني با في قبل سيء قبل مسكين سنة وقوة ملكة سخوس وراني كلفك حوجة يبوصل ويسي والله أساسكم مدراي أنا كويس سامانت نفتيدا دايو بدبادين الحمد لله ورسلنا العق بدنا ugu jirtay meesha fadhiistaan waa qanaa suuq askari oo soo yeeraya هيا askari waa la dhacay yaa ku dhac waxay dhacay dhalinyaro meel agteena fadhiistaan meesha agteena dariskeena waay leeleegdi way badan yihiin ma qof waay ilaa 10 qof ay hadda ma taqaana meesha joogan ha ayaga naftirkooda baa qanaabo waa wada taqaana ha ay soo baxaan hay waxaan baarixiga cadaana waxaan kasta maanta muxbaarta u qata boorsada أسرع عندك أو ما هو كوي أحسن كوفيدا كحرتها kuwii walaabtayga xadeen idinka tuugada magaalada babaartay dadka Soomaaliya ana hees idinkoo أنا ما عرفت idinkoo أكون ما كنت أقول شيء كنت أقول istijiya أو شتوكا نانا وكمان أنا سيبك بقوم ونبص kac مين هتوقع مش مشيكة diskaas mar gaariga gaariga trip ma aha tuugada dadka xad idinka waay gaariga هذا صبر وقع عليك كعنه انا ما جرنا انا ما فكرنا الله قصاردان بلده dhalinyaradu waa dhamaadeen badarogay waxa saadile drugs the mention of your name scares me out of my skin you crept and swept throughout of the continent thousands and thousands are dying from east to west north to south drugs is in the whole world killing farmers teachers students doctors and parents the strong and healthy are dying covered with big earth never to work again the boys and girls like a strong army stand tall and shout odds to drugs fight it by all means No!